idin sheegi rabaa ilmaadeerayaal run baan idin sheegi rabaa anu waxaan nin reesaaq oo ree cali ah oo ree dhagax buura baan ahay aabahayna waxa weeyaan xasan khaliif korneyl ilka casi waa la yaqaana cid walba garanaysa ciidamadii ugu sarreeyay waxa maxay ahayd Soomaali galbeed xoreeyay buu aabahay ahaa u taagnaa maxay ahayd mideynta iyo maxay ahayd midnimada ummadda Soomaali galbeed buu aabahay ragii ugu horreeyay waxa run baan idin sheegi rabaa ninka ina caljari ma aha reesaaq ree calina ma aha ree dhagax buurna ma aha ninkaas waa nin madigaana inuu xasuuqu rabaa ogaadeen buu xasuuqa shabaab ku soo kixiyay ogaadeen buu qaaday waxa weeyaan uu geeyay maxay ahayd أحمر وجي أو تكره كسب بايشان بقول ويل هذا نوح ويل بقول ويل بهالك اللي قلت لي وحويان مان أنت هاس وحويان بقول الباء عبارة قولي متى كاتش قولي متى إني كنا ويد بابي حتى وذا وجي بريد ويدين تملتري ماشي اللي كاني ملتري بيه إني كحرن عنادي إني كحرن وضدي اللي جوين مركي إني كعنا وحويان عن فرب اللي قال أو وحوي يسكت شبيه وعنده وجي تيجي وحيد جاري هذا أبي أحمد الله الله وحويان محسوب بيجا دجالك maxay ahayday cataytu iyo maxay ahayday candufo iyo maxay garbaciisa maxaa isku soo beegay iyo maxay ahayday iyo imaanshaha abi axmed maxaa isku soo beegay afdan baan ligeexda afdan baxda isna baa magaalada afdan oo kamid ah maxay ahayday gobolka city waxa weeyaan waa kan oo imika xitaa oromaydi ku haysataa maxay ahayday dirdhabo idinka iska lahaa laakiin hadana maanta waad ogeedeen madaxweynaha ka soo baxa magaalada dirdhaba idinka lahaydeen gobolka maxay ahayday shiniile idinka iska lahaa haddana maanta canfar baa waxay leeyahay abi axmed baan dhabarka ku haynaayo waxa weeyaan oromo ah waxa weeyaan marka maanta aan ku qadimayside waa inaan ka tarxiilnaa wax Soomaali lagu arki karaba iyo wax Ciisa lagu ma arki karo waa in baasaboor ku soo galan bay leeyahay oo jigjiga leenahay oo waxa weeyaan kooy tobanka gobol kale leenahay bay leeyahay oo balaars bay rabaan Ethiopia iyo Soomaali wey aanu ma kala qaado Ethiopianku waa same mar hadii dagaal maanta dhaco saaseen loo dagaalamayaan in looma dagaalamayaan nagaakaas kala qadqaadna qabiil iyo qoomiyad in looma dagaalamayaan wartaa hal loo ogaado war please waxa ka codsanaa share and like ilaahay baa idinku dhaariyo share gareeya waxaan la hadlayaa nimanka waxaan la hadlayaa Ciise haday meesha ku jiraan war nimankiina Ciise daba ku jira soo qabsada waxa weeyaan 2 iyo 3 waan soo qabanaya haday maartay wax hadal dhiiban kartaan ama wax ka hadli kartaan markaas u hiili walaalkaaga dulman waxa weey aadan farax waligi hal kelmad ma ka oran ibraahim cismaan waa nin Ciise u dhashay gobolka city hal kelmad xitaa ma odhin subax fadin ma mustafa akjar isaga qaar ba dhahaya adeero mas'uuleen kuwa meesha social media ku soo qori markii adeero waxa weeyaan maxaa mustafa akjar lagu eedeynaya kuwoodii baa joogo madax ah war aadan farax waa nin muxuu heer federaal way subax fadin ma waxa weey anigu Ethiopia dhan baan mas'uul ka hay buu leeyahay laakiin Soomaali xuna uraya way oo raba in lagu qaato dhulkiisa dadkiisa lagu qaato oo madax lagu weyneenayo oo dadkiisa lagu gumaadayo subax fantima anu kulli horta kursi aan ku waayay ama anu kulli horta waan ka hadli lahaa waan ka tanaasul lahaa laana waxa weeyaan marbay waxa weeyaan dhimashadu dhaantaa marbay geeridu marbay nolosha baa ay geeridu dhaantaa subax fantima marka waxa weeyaan naagaha baa la ayaan didin baa koob dhinac loo rago marka ayaan noqoto kol basilki qaraacay oo sida doono li adeegsado wallahi horta wadan maxuu adduunka taariikh baa ka tagta waad ogeeyay Axmed Gurey waad ogeeyay maxay ahaydey muxuu ahaa Sayid Cabdullaahi Xasan waad ogeeyay maxay ahaydey hay soo garaacina please qofkii soo garaacay meesha ka soo qabsado waan soo qabanaya qofkii raba inuu soo qabsado meesha ha soo qabsado please ha muxuu ahaayay baalka iga dameeya waad ogeeyay taariikhdu way isqortaa laakiin canjeero kol baxawash xun canjeero la cunto oo najis ah oo kaadida iska meerin oo dadkaagina xasuuqaya ya dameer xumo wey wallahi waa dameer xumo soo macmadiba walibana ninka mustafa akjar la yiraahdo bidaar taleeh madigaan haduu u takililka laga nacay cid ku rabta male qof ku raba male soo macmadiba madigaanki xitaa way ku nacay xitaa kuwa sheeganaysa kuwa fiirsanaysa regular alamagan way ku nacay adduunka waa laga nacay laano faashil baa tahay waad isku buuqsantahay hadda imika aan 3 hadal bay soo gaaray هذا والله وحوقال رسمية بدي شيء ربع وحل نيك أبي أحمد هذا وح ويان متجانك تعمل ورع مرة إلى هذا أرمان هاي هو يبقى أرمان مرة إلى هذا وحنا هاي أحمر ويحيي هذا الجرمة وح غير نسبوي واسيد كبت إن على شركة
لأنه قرع عرفت معي هذا المولد قتل قبل الحنش. عرفت هذا ما تخلي معنا واحد هاي المولد قتل قبل الحنش. نينك القرع إسكتلك أما غير نسبك مسك تطلع انت هين دل اسقى دل بالي اسقى كدر marka waa halis weyn mowladka ina cagshar waa qeyr nasab geelba aabi lagu soo qaado dubad waxay deganayeen maxay ahayd awaare kadibna waxay yimaadeen dhagax buur waxaan la baxay la bidha reer guri alla magan waa fatalwi waa garac in maska iyo libaaxa iyo wax walba dirkoor la sii dilay isaga ka khatiirsan waa akhtar min al-ghaas bi'arfta waxa weeyaan gaaska cuntada lagu karsado buu ka khatirsan yahay isma gubto ma qarxo kaas ayuu xidda ka maxay ahayd ka uu ka khatirsan yahay marka waxa la yiri dirawiimt waani kali garaac li Abi Ahmed haddana waxa la yiri 100 layso caday 100% in uu yimid tuli guuleed waa tulada ay degaan beesha gari tulada ay degaan oo laga beero waaweyn oo qabandiya oo markii dambe la yiri waxa lagu furaya jinacsani oo waxa la siinayaa jaarse iyo bareebadaya nimankaas waa la qarameeyay oo rama qaramaysay waxa la afka Soomaalida way yaqaanaan way dhax galaan wayna isguursadaan waxa weeyaan waxa la rabaa in beerihii ma in dhulkii Soomaaliya lagu qaato oo la yiraahdo waxa uu talo guuleed iyo jaarse waxa degtay maxay waxa degaa waxa dega orome tijiye anaga leh saasi rabaan inay yiraahdaan waa siyaasad fog weyn siyaasad fog ban la galay war inaan wax fahanno weyn inaga isku mashquulsan marka ninkan meesha jooga ee waxa weeyaan kuracag jira isaga ayaa maxay fitni geel cindi isaga wax walba horseed wax horta taa hal ogaado beesha ciisowna ninkaas ayni dilay ninkaasina ogaadeen ma aha beesha ciise belweynta qowmiyadda ciise waxaan u sheegay ninkaasi ma aha ogaadeen ninkan waa madigan isaga ayaa dhulkiini u saxeexay Abi Ahmed baa yimid intuu meesha yimid uu waxaan eegaa tulu guuleed waa been maxaa isku soo beegay weerarka in lagu soo qaaday ciisow ee wax way cafareed ku soo qaaday iyo Abi Ahmed imaanshihiisa maanta jigjiga maxaa soo beegay what do you know ما crazy منه don't have meant نحن ما عندنا حس نحن ما نعرف محيط السياسة ما عندنا عقول don't have meant مين عقل لهين ونلنا ونقرينا ما ها إسكو صواب باقي نيكا مديقان شرينا نيكي صحيحي وحويا عفرتك السعودية توقع وضيقوا حنا قاعد شضعة اوكي محي 20 مليون 7 مليون بيروح وايد اوكي لكن يكون صحيحي ما انت يسقي بقى يوري لمن كان عفرتي ما كلا كرينا صدح ذا قبل وحويان قرب عيسى عندوفو يعتاتو aynu iska siino habaqaataan maxay hayday beesha canfar oo cawaan ah oo awsaqu naasa oo kilaab ah oo waxa weeyaan adduunka ugu buuxsan ha qaataan u saxeexo siiya buudi ninka sidaa yidina waa ninkan muxuu ahaayay u saxeexayna waa Mustafa Cashir ama ha qaadanina ama qaata ka maxay hayday dowlad deegaanka hore ugu yimid oo balkoor ugu yimidna ee xitaa Soomaaliya istada ka mudaharaadi weeyeen war gobolka ciise wada Soomaaliya waa walaalihiin isku dhiig isku dhaqan baynu nahay soo wax faantay ma isku isir baynu nahay iyagu Ethiopian baanu ma Abyssinian isku nahay bay wada socdaan waa ahmaar huwa Birshambil waa muxuu ahaayay canfar waa Oromo waa kidigod beenaalayalwi diinba ma haystaanba ma hay'ada canfarta iyo Oromadu ma ba haystaanba diinba ma haystaanba kiniisadana way galaan masaajidkana way galaan tii la isku aamini karaba boqolkiiba 99 la isku aamini karaba ahmaara soo muslimta dhantaba hadis loo eego agdiida kaga adag soo abadiba la isku ma halayn karo diinba ma haystaanba la isku ma halayn karo nimankaas waxa weeyaan inay maalin walba guriyahana ka dawarsadaan istikhbaaraadka hoosta telefoon ka dirayaan sirteena gacanta ku hayaan hargeysa xitaa naagi waxay dhex galeen bal boosaasi iska badaaba UNT meelbas oo jeefaano wax ay ka dawarsanayaan oo wax way boosadu bal iska ciliyo reer bari madax xabad kaga dhuftaan qaar badda ku daadiyaanba
لكن وقوي لا نحتاج قريه ماله بيلو ريجين بقارنا كجورسدين يو رجنا وقوان بشيء سواء ما وقال حتى أيديس لقاها علي مع السومالي وحو كان ورمضة وكانت والله إلهي قصرية خنيسين ويان مخنسين ويان أوسخ الناس وجه الأرضوي ورمضة ودتك وحن عن فربا صور رعبة waxa soo raacda kuwan nagu dhaxnoole jinacsi muxuu ahaayay jaarsaha ee Soomaaliya ka badiyay Soomaali baan nahay oo dir baan haydada ma oramada u ordaya oramada wado oramo taas iska ilaali afdal xaaja wa nimankaas waqti way kuwaas waaba nimanka ina jaajuusay ee wax walba gudbiyo jaarsaha awsakh الناس wi soo fantin ma markaan niman yahooni Soomaynan ahayn in ay madaxda meesha joogtay ee Soomaaliyeed inay ka hadlaan gobolkan city oo aadan faarax maadaama uu dhasho aadan faarax taariikh baa ku qoraysa dalkan iyo dalkan waa dadkaagii dhulkani ma guurayo waqtigu laakiin wuu isbedelaa kursigan oo ku fadhido rag ba hore ugu fadhiyay waxbana kuma tiid dhulkaagan baa lagu qaadanaya barina waa ka tagaysa ina cagjar waa nin madigaana meelna malaha jarar male meel male Soomaaliland bay degan عيد هاوتك محي هيداي محوها نيكاس محوها اي هاوتك محي نيكا سومالي نيكا هايستا انا بيعيش محوها مسبح هاوتو المسبح يوح كليه وكلك سنه وحبكم مالك dadka degan ee wax weeyaan minority-ga uu kamid yahay faarax macalin ibraahim cismaan waxaan ku sheegay taariikh waa ku guulis dadkaaga iyo naagahaaga baa leeynaya waxa leeynaya waa cafar cawaana soo wax faantima oo Djibouti kabaha lagu socdo ka Djibouti kabaha lagu socday ka yihiin minority bay ka yihiin waxa weeyaan Eritrea minority bay ka yihiin kabaha lagu socday ka yihiin soo wax faantima halkan degantiina minority baa waliga meel si kala celin jiray laakiin abi ahmed baa ku hubeeyay oo yiri waa inaad ka qaadataan maadaama wadada ay ilaalinaysaan tikreena aan idinku diray oo aad ka celinaysaan hubkan casriga qaato ku xasuuqa wadaagsi guriyaha gubanay hubkan nooca u dambeey ay la dhacay dad shacab xaguu ka keen lahayd ninka ugu badan baa qori girno faasta ama aakay haysta xagee ka keenay hubka inta la ka keenay oo maanta waxa weyn Anfar ku dagaalamayso Ethiopia military Ethiopia ee u diiday ee ku deganaa maxay ahayd garbaciisa ee hooyooyinka biyaha iyo cuntada u diidana ee marta inta u baneeyeen idinku soo daayay ya ee marta inta biyaha idinka jaraan ee wax badan ka jaraan ratay raba inay dib idin celiyaan oo meesha idinka raraan aan baa lagu gaaray Ethiopia in saddex gobol ay qaataan idinkuna intiina dagaalamayso way intii lacagta lagu qaybiyana naagaatiin taariikhda qurb shalay baad la haydeen waxa weeye aadan faarax uu joogay markii uu Cabdi Ilay Saxaaxi uu joogay kan yaray xataa meesha muxuu ahaa Ibraahim Cismaanka uu joogay wuxuu ka ahaa wuxuu ka ahaa maayir buu ka ahaa subax fadima Gobolka City maayir buu ka ahaa waxa taariikh baa idin qoraysa waxa dhulkiina waa inaad soo dhacstaan ninka madigaan ee la yiraahdo Mustafa Cagshar baa dhulkiina bixiyay qaata ama ha qaadanina maantana waxa weeyaan Abi Ahmed umuunan imanin dad la xasuuqay oo waxa weeyaan ka yimid Gobolka City oo Anfar xasuuqday oo hub soo siiyay umuunan imanin wuxuu u yimid dhulkiina in loo saxeexo hoos ahaan odayaal buu ururiyay in Cagshar hool buu ku ururiyay laakiin wuxuu ka dhaadhiciyay tullu guleedna wuu yimido waxa weeyaan jaarse ayaa waxay leeyihiin annaga wax dhul baan leenahay maxay baan leenahay waxaan uga degnaa gari baan uga degnaa iyo ree waxa weeyaan anagu oromaan nahay waan la xasuuqay ilaa waxaan u lahayn berbera saasaan u lahayn minority baan nahay dhulkayga baan laga qaatay oromaha soo degto hala sufeeyo maxay ahayd ogaadeen Soomaali galbeedka hala sufeeyo wixii la degaba subax fadan ma marka siyaasaddan waa siyaasad fog way nimay xun ama qaata ama ha qaadanina ama soo garaacay halka ka soo qabsado waan soo qabanaya shakhsiyaadka soo qabanaya wana kuma soo qabanaya mala who is it the new legacy wuxuu ku leeyahay unlawfully to the audit the accusing it they cannot try but ma soo qarsamay saaxib si caadi ah soo dirso soo waxe marka ummadda Soomaaliyeed miyay tahay miyeen xaraan ahayn dad la leeynay oo dagaal ku socday 2 sano iyo ka bas 3 sano ku socday oo guryahoodii hantidoodii maatidoodii waxa weeyaan
kun laba kun ilaa 3 kun oo qof kaga dhimatay dagaalkaas ay Itoobiya ku soo qaaday waa Itoobiya oo dhan ma aha oo kaliya canfar oromaa ku jirta axmaara ku jirta Benishaambel baa ku jira Abiy Ahmed baa ku taageersan oo ugu badan buu siiyay Itoobiya oo dhan baa ku soo duushay ونيو سوق بسنيكا معوها أضيقة معها برميس معها Goodluck علي سوق بس صاحب سوق كهذا نمن كعيسى بهني أنا نمن كعيسى عاو بهني ورنمن كعيسى سوق بس وكهذا لكن لقاتي كهذا وحويان نمن كالصحيحنا وحوي وإنا عكتر باكوكا أبي أحمد بايمت وحويان لا تلو جولات بانو يمدي قبندقة waxaan rabaa inaan canfars inaan soo dejiyo oromo inaan soo dejiyo maxay ahayd tala guuleediyo iyo muxuu ahaayay jinacsani oo isku furo ayuu yiri ninkaas soo qabta saaxib France manihim baan malaynayaa the talking noshingi telkayga ha saaxib ha madax sare نيو هالكنا كلاسو قبنا يا تلكي ساعتو سيبسو قرع هالكنا كلاسو قبنا يا أدير بانيري بانكو قدر سوي سوق قفص ساعد سوق والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة مضاع سنة وريكو صاحب بعد هاي وفي عنا صاحبي ورن ما سنتها أوجاس واقف سلامي بقول كيف بقول وكاغاي كاغانا وحام برنامج كاغانا هورتا آد بان أولى السعودية أنت هرون نمسو قبسنجين وحبان كابرني سفيعا ما شاء الله عليك aqoon aad u fara badan baan ka iftiinsanayo sidaadaba markii juqraafiga lagu baro wax lagu meeriyo oo arday dhaga nugul aad tahay oo wax lagu fahansiiyo kadib baa su'aalaha u banaan baxayso ilbaxnimadaas aad gaaraysaa si fiican marka horta taariikhdaada aad madigaan yaa ogaa madigaan adigu baa noo iftiimiyay maanagaan naqaanay waxa weeye nin walbaba waxa weeye waxa la yidhi haddii la rabo baa la yidhi qofkan in maaragtay la hidda raaco talkii baa la weydiiyaa صح aduu gobol sida ka soo jeedaa miyaa saaxib anigu waxaan ka soo jeedaa waxaan ahay MJ Puntland baan ka imid laakiin gobolka Doolana waa deganaa aabahay iyo kulli halkaas ay ka soo jeedaan laakiin aniga suuqii 2 jiraan lagu keenay oo ku deganahay weli marka kuma noqon laakiin waa ku hanweynahay oo aad ugu jabhadda oona lafna dhalinyarada waa ay wada yaqaanaan oo meel walba waxaan ka mid ahaa halkan waa media mar baan iswaraysanaa ragga u halgamay baan ka mid ahaa si fiican niyo waan ku arkay laftiga in badan baan ku arkay niyo markaan adeer waxaan ku diin rabay kulli waxa tahay nin Soomaaliyeed baa tahay dalka Soomaaliya Itoobiya ku soo duushay waad og tahay imika gobolkaas city weyn u ogeyn taariikhdiisii iyo wuxuu soo maray laakiin in adeerow biyaynan qalad ahayn maanta waxa weeyaan xitaa hadalku hiil buu galaa soo waxa gartay ma xitaa aadan faarax waa maanta waxa weeye waa madaxweyne ku xigeenka xisbiga maxay ahayd talada haya ee musiibo noqon barwaaqo ma naqaane haddii xitaa aadan faarax maanta aynu nidhaahno waa heer federaal ugu cabsanaya Itoobiya dhan buu matalaa waa sida iyagu ay maartay leeyihiin muxuu Ibraahim Cismaan uga hadli waayay maadaama madaxweyne ku xigeenka kilka Soomaaliya wuxuu uga hadli waayay waxa waaye sideedaba qofku haddii quraan alifka ka halaabay albaqara kama tooso war dadku haddiisan ahayn dad isku duuban ay dhalay oo dhan baa soo dhex galay war haddee Itoobiya weligeed Allah taariikhda waa nooga sheekaysa dirir dhaba Soomaali baa laga qaaday harar Soomaali baa laga qaaday yani waa laga qaaday kaliya dadka in la dhahmaan waa lagu soo durkayaa wey صح waa lagu soo durkaa marka dambe xaafad xoro xaafadda number 6 xataa waa ka maqlay ayagoo jigjiga samaystay si fiican walowna oo hadda ka soo galay maalin dhow haddaan nool nahay aniga adiga 20 sano 10 sano inta la gaar waxaa maqlaysaa jigjigay ka soo galay meeyar bay ka noqdeen صح وكيين حمارة وكيين حمارة وكيين صح وكيين بس هو مركز دم بوي ناق بالغ دورتك ناق بالغ دورتك والسوس راعي ينعكر ودورشة بوي ناق بالغ الشرعي ها مركز أدون هذا وارد إنجليز كان كلنا عدان عرب روش
hal wax baa laga midaysanya waa la is accept gareeyey ninka meesha u laandheeraysan baa sanka dadka ka garaacay ayagoo ogaadeen inta isku duuban aysan sanka dadka ka garaacin oo aysan dadka isku dabaridin ma toosayaan صح laakiin haddii ree isaaq iyo ree cabdille loo kala tuuro haddee ninkii meesha majority-ga ka ahaaba aabihii dhammaa haddaanba laga baqaynin oo asagii haddoo loo kala tuurayo dhadhan yeelan mayso ورن meesha waxaa la rabaa in nin sanka ka garaaca dadka la helo kadibna milladiisaa la qaadanayaa صح marka صح milladiisa ama ha kugu dhaqo ama kula dir ama ii tartiibi oo wax ii reeb ku dheh aadan faarax marka waxa keenay kala qaybsanaanta reerkan aan walaalaha nahay ee ogaadeen inay u midoobaan madigaankaa qurunkaana ay iska dhex saaraan صح midda labaad adiga aan raba inaan ku weydiiyo haddaadan ogeyn cilmi baaris aa kusoo samaysid aniga iyo adigana mustaqbalkeena dib ugu xiran etoobiya qorshe aad u dheer bay ka leedahay soomaaliya iyo dhul soomaaliyeed oo dhanba سفعل etoobiya dhul bay rabaana dad ma rabaan سفعل weligood iyo allahoodna saasay ahayn waana nibcaayeen waana nagu soo socdaan maanta ay garab heleen kaba daran su-aasha aan ku weydiinaya adiga maxay tahay ma jiraan qabaa'il yahuuda oo etoobiyaana oo soomaali sheegtay laakiin ayagu hadday doonaanba hanala tukadaan hadday doonaanba sidii kaa madigaane iska tukanaya ha noqdo kula tukanayo kula soomay laakiin hoosta gurigooda markay galaan kiniisadoodii ama yahuudnimadoodii caabudayo annagu aanaan ogeyn baaritaan ma lagu samey ilaa ummaddaa nagu dhex jirto waxbaana gubanaya waxbaana ogaanaya oo sirteenna og صح كان كل شيء كان كل شيء imika haddaynu ka soo qaadno magaalada jigjiga inagoo meel kale aan teginba gobolka muxuu ahaa gobolka faafan waxaa jira niman axmaara ah oo dhabuub leh oo bilshaamba leh oo uraaga leh oo waxba dukaamo ka furtay xaafadihii meel walbaba dadka waxay siiyaan dadka waxay qof walba ka iibsadaba 2 miro xanjaa bay siiyaan 2 miro nacnac ay siiyaan subax bantima maxaa ku jira waa sixir etoobiyaanku sixirka ku dheerayaan xanjada qofkaas markuu cuno meel kale ma tegay isagu imanaya صح subax bantima qaar waxa jira dawladsada baa jira oo oroma agoon la dhiisay saaracay seexanayaan way ku dhageysanayaan Soomaaliya oo dhan bay joogaan xitaa Puntland Somaliland waxa weeye koonfurteena u badnay horta gobol weyba degan yihiin si waxay u joogaan ba labadaas maamul waxay u joogaan sida waxay u joogaan waliba Puntland naagaha iyo waxa ma dhax galaan way ka taariibaan inta badan oo la iska ilaaliyo xataa waa la dilaaye laakiin Soomaaliya wayba qaatay xitaa 8 waxta u keenay subax bantima صح waxay leeyihiin mafta fog bay leeyihiin oo naagtii bil 6 baa maartay bisada Soomaaliya iska dhasho naagtii bas 9 bay soo daynaysaa wadiga arkay hargeysa ku yaro af Soomaaliya ka badiya oo qoygo lahaa anu meeshna walaha waraha walaalka muxuu ahay aabahay waa la dilay iyo hooyadii laakiin aniga leeyma dilayo sababta luqadda waan kula aqaanaa waxa qortaan kula aqaanaa berito waxa weeyaan waxaan ka noqonayaa majority subax fantima marka waxa weeyaan hadaf fog bay leeyihiin ay maartay waliba nimanka oromadu waa awsaq naas waa nimanka ugu xumeen maxay ahayd Etoobiyaanka subax fantima marka in adeer hadii waxa rabay shacabka waxay tahay su-aashan ku weydiiyo waxay tahay oromo iyo inay saas waa kaa waray oo casharadaada waa qaatay waa ogaa waa la socda waa sheer garay su-aashayda waxay tahay ma jiraan dad Soomaali ah oo laakiin yahuud isqaranaysa oo nagu dhex jirta niyo waxa jira muxuu ahaa waa laga yaabaa anu laakiin ma hayo 100% ma hayo laakiin way jiri karaan waxa jira imika dadkan aan ku sheegayaan ku leeyahay jaarsaha nimanka la yiraahdo imika mid ka hadla farsaamar ma ku soo qaadi doonaa mid Soomaaliga bartay oo la dhaho Bashiir la dhaho Axmed Bashiir oo Ingiriis ka hadla soo taqaan si fiican oo la socda waa jaarse cuqdadaysan sahra iyo habarta xunta sahra ee maroodi ay dhacaan ها تاسيو وعنفر تاسيو ملا بس كسعة نيكاسي وذلك حتى أفريقيا حتى من أفريقيا ديني وذلك شلي وعكوش بي عداني هذه وكان مع الصومالة ها وذلك سوي هاللي رقبانا كورا أشهر قرية أو كحرة نيكا نوعاس إن هذا من القلة إلهي بن كوداري وأنا قبل سيد محمد عبد الله حسن قبل وحا كنت قال كنيكا أورك أقرأ ينيكا أفريس كل وقالوا ور aniga waxaan qabaa ninka Axmed Bashiir la gala oo u ninkiya oo u jaasuus oo ogaadeen iyo jaasuusa oo dhulkeena jaasuusa haddaan life loo dil khaarajin lagu sameeyo si fiican way
waliba ninkaas hadda uu cadaystay ninka maartay muxuu ahaayay jaarsaha orama ku orda waxa la yidhi ninka baa la yidhi ninka hambadaada cuna baciidada yaqaana baa la yidhi Soomaali kuma mala waxa weeyaan ninkaasi Djibouti buu joogi jiray maxay kashbay buu ka ahaa hoteeladu ka shaqeyn jiray waxa weey waa nin cuqdadaysan cuqda Soomaali baa haysta hadda wali maqayo orama la sifeeyay ها أورام لصق عليه أورام إسكالي ولا تجيء تير الدبا يا بقول ما قبل كشنيله بي أورام لا يحكوا له مايا يا كمالها هل حافظ بك الدجان بكور باسبور بيكسر كل ينبود وحلو مغلس وقال لي صح على ما يلا روح ما كارك واحد يجي أو دجال ما يو متقنا يرمت كهلا صح وقاسك يلا روح عشان والله الله أنا رج بدن النوع عاص إني كعام بالربع أو مدرسة هذا اللي جاء في عشر رضا بدن بدني وليبقى أنا وحن كوني لها جغرافيا تتكلم وجود ردل سوق كلا هذا الله على سوق خد لي وعرف تكتو ترين وسير صرت هو الرئيسي نسوا عليها بس حالة ثلاثة وأوين سفعان هذا ريا ماذا حلقة قبصنا ندكن أنا وحوبا عنها ورتا 10 عصبة جديدة إن عقدنا البراحة إن أنا حتى نقولنا ضد فوجين ونقول إن لقى قاضي سير فلسطين أدنى عقدته إن لقى شوي ساحل سكة لو فما تبارك إمكن أديروا أنقول رمي عن فرق ويتوبيات لكن نك الصومالي الدجام حيث الصومالي قلب أمو قدام دجام ده ما أها وحي هو الصومالي بنو يقال كارجيس تشوجا يكتشوجا تبوت يكتشوجا هو يدي صومالي المقصود تشوجا يكسمعي تشوجا يو صومالي حتى ما كان فارق ويقول هيان صومالي باتاي هم يقول هيان وريا يقول هيان هم يقول تيجي سوى أنت صومالي خلاص وصومالي لكن إنك مارت عفرك أما كان محوا شارسها أما كان أو مارت وإثيوبيان لأنه أفكي بكوها الله وحي وقرا وحود أنبوحية مركا يجو ده كان هوب كان ياسي إما كبرد وإذا دجال السعودية وإذا تكرر يقول لك هوب منا لبق قوميات بسي وحسيه وأحماره يوحسيه محي هذا عنفر وحور الصومالي وقوة دجال وذلك إما كتولوين كويا اللي قرب عيسى قبس لو قرع وذلك أودياش يعي صح قري ninka shacabka qori aa ka weeli kara laakiin xagu ka keenaya maxay ahayd dhishika ka keenaya ama ka keeni kara kaare ama ka keeni kara hubka ugu casrisan beesta nooca hubka ugu casrisan beesta lusi abi ahmed wuu yimid in adeerow wuxuu yiri taligu ducada buuri magaalada tuulada la dhaho taliguleed ay degaan nimankan daaro degaan ay maxaa ahaayay gari ha wuxuu rabaa qorshe dheer bule wuxuu rabaa inuu taliguleed isku furo meeyar jaarsuhu degaan oo la dhaho waxa la dhahaa isoo sheeg magaciisa maxay jinacsani buu rabaa inuu isku xiro yiraahdo oramaaba laba si oramaale ka guura beritoona uu dagaal ku bilaa uu soo hubeeyo sida uu hubeeyay maxay canfarta inuu kuma hubeeyo rabaa soo badima marka tafacal shir buu tagay uu ka dhowr oday buu keenay waa la saxay imika saddexda degmo gari maxaa ula hadli weydaa soo galaan miidiyaha ka hadla kaco nimanka gari waxa weeyaan waan ku xidhanahay waan ku shar garaynaya rag bool asxaabo baa jirto oo kuwa Carabaa jooga kuwa Afrika jooga iyo kuwa Yurub jooga waan ku shar garaynaya insha Allah way soo hadli doonaan qabandiba laga furay waliba beero weyn oo qabandiya laga furay ma fahanti bas nagu soo xir aan wada hadalna ila adeero London miyaad joogtina aan guddi aniga adiga iyo aan sameeyno Soomaalinimo oo dhulkeena aan ku difaacano anagoo waxna kala la'aana waxna wada lahaano si fiican وسينا ليت وعي قلينه ليت ويبراروسي يهين إما كان ليت فرقان بايقو حرام ويبراروسي يهين وضو حفاهنسن ضل السيري كرماءها ويقوغيهين نمانكا لسعودا محايا هايدي دبا قوديغا دبا دلفكا نمانكا لسعودا ويقوغيهين ويكور هيان وحوي أبي أحمد حتى ماشو الصعودا ما أنت تشيوه حرات مقالي تشيوه ما أنت الظهر كسيد الله حرات